أحييكم وبالأشواق ناتيكم فأغلى وردنا أنتم وكل الورد نهديكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. iska ilaali wax lagu magacaabo at-taswiifka waa ina camal walba aad dib dhigtid aad dhahdid biri ayaan qaban doonaa biri ayaan sameyn doonaa biri ayaan toobad keeni doonaa waqtigaas ayaan toobad keeni doonaa waqtigaas ayaan nolosheeda cusbeensiin doonaa waqtigaas ayaa taacada ama cibaadada ku dadaali doonaa wax walba inaad dhahdid biri aw waxsatid aad shaytaanna uu ku mar walba uu ku dhaho biri iska ilaali waxaas laana at-taswiifka ama wax walba inaad dib u dhigtid waa cadowga guusha adduunyadaada iyo aakhiradaadaba wuu baabi'inaya adduunyada haddaa rabtid inaad heer ka gaartid wax walba waqtiga aad haysatid samee sidoo kale aakhiradaada haddaa rabtid inaad ku dadaashid wax walba hadda waqtiga aan joogtid ku dadaal oo to haddaad toobad ahaan lahayd taacadaada wax walba hadday ahaan lahayd mid kale haddaad dhahdid wax walba waxaan dhigayaa waqtigan ayaan samayn doonaa yaa kuu ballan qaada ama yaa kuu sheegay inaad gaari doontid kale walaalayaal waxaa jira waxyaalo adduunyada inta ku nooshahay hal mar fursad ku soo maraysa halkaas mar hadaadan ka faa'iideysid waqti kale uu ku soo marin marka waqtiga uu ku soo maray oo had aad haysatid ka faa'iideyso waxaas wax walba haday ahaan lahayd biri dambe iska hilmaan moog wax kugu dhici doonto inaad dhima doon moogtid waqtiga xaadirka aad haysatid ka faa'iideysa mar walba sidoo kale ibn al-jawzi waa jamaaluddin abul faraj wuxuu leeyahay iyaaka wa taswiif waxaan kaga digaya taswiifka oo wax walba inaad dib dhigtid waqtigaas ayaan sameyn doonaa laana maxaa yeelay shaytaanka waa wax ugu adeegsado waa jundigiis ugu adeegsado dadka ku shaki galiya kuwas waasiyo inaa wax walba aad dib dhigtid iska ilaali وجزاكم الله وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.